maalmihii ugu dambeeyay waxa bulshadu aad u hadlaysay in laba agaasimo oo ka tirsan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay iska dhiibeen dalka Jarmalka kadib markii ay si qarsoodiye uga hadheen wafdi agaasimayaal oo hay'adda Jarmalka laga leeyahay ee GIZ ay tababar aqoon kororsi ugu qaaday dalka Jarmalka. Gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee dalka Jarmalka Axmed Saalax Cabdi ayaa Zab TV u xaqiijiyay jiritaanka arrintani. walaalow waftigaasi wuu jirtay bishii sagaalaad shanteedii ayay waxay yimaadeen Jarmalka wafti ka kooban agaasimayaal dhowr iyo 10 agaasime ilaa 14 agaasime waxay ka soo degeen magaalada Frankfurt waxaana u socdeen hal ujeedo oo ahayd in ay halkan ka kororsadaan aqoon kororsi oo hay'adaha Jarmalku ay maaragtay waftigaas soo casumeen waxay sidoo kale markaa waftigaasi halkan ugu yimi oo Denmark ka soo duulay wasiirka qorsheynta Dr. Shibin oo ay kula kulmeen iyadana ee Bonn waftigaasi sida aad sheegtay may wada noqonin isla maalintii noqonaya waxaana noqday waftiga badankiisa 13 September horta halkan maxaa la yiraahdaa Yurub marka qofku yimaado sababaad badan buu joogi karaa nidaam waxbarasho ku joogi karaa oo halkan jooga nidaam shaqo ku joogi karaa sidoo kale nidaam isdhiibis sida af Soomaaliga inagu naqaano ama arrimo u khaas ah qofka oo hadii uu culays ka saarna wadankii ama mid siyaasadeed ha noqoto mid amni ha noqoto halkan uu joogi karaa oo in oran karno in isdhiibeen oo halkan joogeen marka iyadu labada agaasimo waxay u joogaan wadankan in halkan iska dhiibeen gudoomiyaha oo hadalkiisa si wata ayaa tilmaamay inaanay arrintani bulsho ahaan inagu cusbayn marar horena ay dhacday in mas'uuliyiin hawlo shaqo loo soo qaaday ay iska dhiibeen halkani markay maaragtay wafdiyadu halkan dhulkan ay yimaadaan qaaradda Yurub Somaliland kaliya ma ahan wadamada kale waaweyn ee Afrika ku yaala ee Somaliland ka waaweyn wufuud way ka hadhaan qaarkood inkastoo inaan dhiirigelinin inay ka hadhaan haddana way dhacdaa inay ka hadhaan wadamada kale dad ka hadhaan marka wax Somaliland u khaas ah kaliya maadaama aan ahayn inay halkan ay kaga hadheen u malayn maayo inay wax saameyn ku yeelan doonto Jarmalka iyo Somaliland wufuudda dambe la soo xasumi doon aadiya sababta labaad أنا واحد سامين أقول يلان دونين مستقبل كوفودة كإيمان دونت Somaliland واحد هاي إن أي ترين سنة والبا ضد يوم بدن غير Somaliland ولا صوع السماء أين عاد يرتبط قلك بحلقة هاي إني كهران أما أنا أنت بدن دعم با سيدة صالحان Somali week إن أنت إن أيام عشور أي صوع السنتو ضد كي صوع السنتو ضد يوم صوع السنتو غير Somaliland أضفر بدن وقاركود عايهين قاردد عادي أيهين تو سيدين الله هذا كوجنا ووضع نقدان marka maadaama rekoorka fiican ay u yeelaan dadka fuud reer Somaliland ama mas'uuliyiinta reer Somaliland aadka loogu yaqaano ma u malayn maayo marka inaan wax saameyna oo ay ku yeelan karto aan jirin si kastaba ahaatee ma cadda ujeedada rasmiga ah ee labadani agaasime iskaga dhiibeen qaaradda Yurub xilli ay noqdeen agaasimayaashii kale ee safarka ku wehelinayay waxaana dhici karta in cadaadis ka saarnaa dhinaca xukuumadda ay ka tirsanaayeen Sakariya Jeylani Zab TV magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka.